Afartan jirkaygii ayaan mashaariic badan helay, magacaygana wargeysyada lagu qoray. Maalinkii xigtay, asxaabtayda iyo qaraabadaydu gurigayga ayay joogeen. Assalaamu calaykum. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kaliya muuqaalka loo xiiso leh. Waan ogahay inaan dhiman doono, ma doonayn inaan halkan imaado, laakiin iyaga hay keenay halkan. Waxba ka murugan xaaladayda, timahaygu way daateen. Anigu da' ayaan ahay, laakiin adigu dhalinyar ayaa tahay. Noloshu waxay bartay. Haddii aan wax kaaga sheego qayb ka mid ah wixii ay bartay. Markaan 4 sano jir ahaa, waxaan u fikiri jiray sidii aan anigu dunida leeyahay. 14 sano jir markaan noqday, waxaan doonayay inaan dunida xukumo. 21 jir markaan noqdayna, waxay riyadaydu ahayd inaan maalqabeen noqdo. 25 jirkaygiina waxaan raadinayay jacayl. 40 jirkaygiina waxaan jeclaa inaan cid walba caawiyo, laakiin haddeer waad aragtaa oo waxaan diyaar u ahay inaan dhinto. Wax badan ayaan rabay, waqtiyo kala duwan, muhiimaduse waxay ahayd farxad. Waddada ugu fiican ee farxadda ku helayna waxaan u haystay inaan dadka dhageysto, iskaga daydo dadka oo dhanna raali geliyo. Markaan jaamacadda bilaabay, waxaan rabay inaan barto cilmiga psychology-ga. Waxaa laigula taliyay inaan noqdo injineer. Si aan injineer heer sare ah u noqdona taladoodii ayaan qaatay, laakiin cid iga bixisay fiiga jaamacadda ma jirin. Waa inaan shaqaystaa. Sanadii 3aad waan awoodi waayay inaan sii wado jaamacadda, waanan joojiyay. Isla kuwii ayaa igu yidhi waxay ahayd inaad iska barato cilmiga psychology-ga. Markaan gaadhay 28 sano, waan guursaday. 6 sano kadib, xaaskayga ayaan iskhilaafnay. Kadibna maalin anigoo shaqada ku maqan ayay carruurtii iga sii kaxaysatay. 40 jirkaygii ayaan mashaariic badan helay, magacaygana wargeysyada lagu qoray. Maalinkii xigtay, asxaabtayda iyo qaraabadaydu gurigayga ayay joogeen. Mid kastaba xaalado iyo cabasho culus ayuu sheegtay. Usbuuc gudihii, wixii aan ogaaday ayaan amaahiyay, iyagoo iga ballan qaaday inay i soo celinayaan. Mashaariicdii ayaan wadi kari waayay sababtoo ah amaahdii layga qaatay ayaan dib laigu soo celin sidii ballantu ahayd. Kadibna xabsiga ayaa la i diray muddo 6 sano ah. Kadibna waan ka soo baxay, laakiin cidna iima iman. Hal qalad ayaan sameeyay noloshayda oo dhan, taasina way ii caddahay maanta. Ii oggolow inaan wax kaaga sheego. Waxaan diiday qalbigayga inaan dhageysto. Waxaan xaqiray naftaydii oon ka doorbiday dad aan xaq u lahayn. Waad aragtaa, qofka kaliya een weli ahay waa isla aniga oo keliya. Taa way fiican tahay inaad dadka dhageysato lana tashato, laakiin dadka inta yar ee caqliga leh la tasho. Go'aanka u dambeeyana adigu lahow, allana tala saaro. Awood kaliya ayaa jirta oo dusha ka xukunta, waana Rabbiga. Daawade, waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale, haddaad nagu cusub tahay, subscribe dheh. Wassalaamu calaykum.